shaqeeya ururka horumarinta waxbarashada iyo arrimaha kale oo faraha badan ururka Nuur Foundation. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan kaloo guri u noqonayaa waan mar labaad ku salaamayaa anigoo ku hadlaya magaca iskuulka Xiiro ahna gudoomiyaha waxbarashada iskuulka Xiiro, anigoo ku hadlaya magaca deegaanka Xiiro, anigoo ku hadlaya magaca guddiga Xiiro. waxaan mar labaad ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan soo dhaweynaynaa walaalaha iyo kusoo dhaweynaynaa xafladda sharafta leh ee laasiman walaalaha iyo loo dhisay iskuulka sharafta leh xaaji maxamed ismaaciil dawaari iskuulka magaciisa leh xaaji maxamed ismaaciil dawaari loo magac baxay. anigoo ku hadlaya ururada bulshada waxaan mar labaad salaamayaa oo u hambalyeynaya ururka Nuur Foundation meel kastaba ha joogaane iyo inta hadda laga joogto oo martida oo ah oo kasoo qayb gashay xafladda kan. walaalayaal markaan taas ka baxo iskuulkan waa waqtigii meesha ku dhigan yahay qolal yar oo tahmiid uga dhashay ardaydu kale ku yara kuraas lahayn. markaan aniga dib ugu noqdo waxaan muddo badan u dacwoonayay hay'adaha dowliga oo ajnabiga ugu dacwoonaya bal kuraas keliya noo keena kuraas keliya iskuulka noo soo dhiga. waa ka yimi ilaahay mahadiis waa isku tashanay ganacsatadii iyo dhalinyaradii Nuur Foundation oo ah dadka walaalaheen ah ayaa noo dhisay iskuulka aragtiisa hay'adiisa iyo xiraftiisa taladiisa kuliyadda calitaan maaha iyagu hadday dhisaan noo agaabiyeen inay iyagu weligood dhinacyada gaabiyaka noqonayaan gabyada ku xamilisaayaan. waxa la rabaa iskuulka kudcaal u baahan yahay, tan maskaxdu u baahan yahay, tan u baahan yahay, waxyaalo badan buu nooga baahan yahay. waxaa maanta laga bilaabo ururka Nuur Foundation bay Xiiro ka mid tahay oo ku deeqaya lacagta walaalada lagu deeqayo jeebkooda furayo. waxaan garaysaa ninka haddii maaragtay farta yaqaan ama ingiriis ama carabi ah ama ingiriis ama talyaani ku yaqaan haddii la yidhahdo hala baro diinta islaamka ama qur-aanka hala baro waxay yaqaanaysaa inuu ku baran lahaa. marka cilmiga markaan qofku waxbarto baan u dallay waan u gudbinay iyagoo u qorshaysan meel kasta inay iyagu gaarsiiyaan intay gaarsiin karayaan. haddana anagu waa u tagnay waana ku sheegnay in meeshaas baahida ka jirta lama ardaynay iyana waa ogaadeen waxa ka jira. Foundation innagu aynu ka mid noqono haddaynu reer Xiiro nahay inaynu ka mid noqono urur ka mid ah Nuur Foundation ururka Nuur Foundation reer ka mid aynu noqono dhaqaalaha ay bixiyaan dooda ka wayaan innagu dhexdeena ka wadno. waxaana la furay maanta sanduuq lacageed baa maanta la furay. sanduuqaas waxaan isla meel dhignay in sanduuq baa xalay in walba tabarkiisa kii $10 ku ridi kara, kii $5 ku ridi kara, kii $2 ku ridi kara, kii $1 ku ridi kara. sanduuqaas way furay. waxa yara maanta laga bilaabo ka mid tahay ururka Nuur Foundation ee ka mid nahay inagu waayo iyagu hay'ada kama soo qaadina jeebkooda ka soo jireen oo ka warsheen lacag. kuwa wadama ajnabi oo ku nool waa dalkooda jooga baa laga soo qaaday jeebkood, kuwa ganacsatada laga soo qaaday dalka jooga, kuwa dalka jooga laga soo warshay. sanduuqaas way inoo furan yahay waana la bilaabayaa ciddii sanduuqaas akoonka baa la furaya. akoonkaas ciddii mas-uulka noqon lahaydna kolley waa lagu sheegi doonaa insha allahu. taasna waa qorshe ku jira meesha. waxaanu rabnaa sanduuqaas dhaqaale ee furay lacagteedana isku tashano iskuulka wixii ka dhimaa inuu ka mid noqoto. caafimaad baynu u baahan nahay oo kow ah hadda furfayska labaad baan u baahan nahay inaynu lacagaha kaga gadgalo tiina lacagdeena kama qaadin dhulkaadana weydiistaan bixina keliya laakiin waa loo dhamaystir. laakiin intaa soo socota wax lahaa inaynu inay ka mid noqono oo halkaa aynu wareejinay oo caafimaadka wareejinay. bismillah alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. markii sharafka boosaasaynu ka timi culimaadudiinka ururka dhalinyarada kan haweenka ardayda shuweynta reer Xiiro dhammaantood
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على السلام وقت مغير يباريني أنا أول أبدا وأفريقيا مثل بليل هذا البلد إن كتيني وأبدا باي في عنا الله من كيف سيد الساسة نروح على ذلك الله وعملنا هاي مورفيشن وعوي وطمك وري ما دي لها باسكت اللي هي كان اسمه كان عارفان وإن هيسيه نبغى حبا هاي بام هايسكت ما عدا الله عليه ونو كدليلا وهي لو كنت لا غير تاسس كان مش كدليلا وعوي مال صودا يمرهم ولا يسكعوا كنت والله ولا له سيجي يوم بحانين كنت على قليل وعوي وعملي قوتا وقوتا أفراد قدرة بلغة تبرشي حليله وعوي اسكولة كدسي واسكولة كأبروح ليسا عدك إنسان يولاك يسا يولاد يسي إلهي مرغوضة يمان كوضة يمسكحوضة يمنوضة إلهي وعوي عزيزي ودعوتا ومتعينينا dadka iyana aqbalay oo waxa weeye soo dhaweeyay oo waxa weeye inay hantiyaan oo ka hantiyaan walaalahoodna waxa weeye iyadana kadalik waxaan inta kusoo gabagabaynayaa walaalayaal waqtiga oo yar haddii waad arkaysaan waxa weeye reer xiriiroodo inaga waxa weeye intaas walaalahayna ka soo gaartay wax kale oo khayrna way noo soo socdaan insha Allah ilaahay nakiis إننا وعوي وعينا وحنا قدر سنة واحد صوص عنا كنا أينو هجاج سنة إينا نقولنا ضد وحنتيل له هجاجي إسكابي إينا نقولنا ضد وناك سنة وحين لو ترى جري وإينا وناك سيبودية وسيدة حتى على النية إنه كيجتو وإنا هو كعصمينا وإنا نسيدة ولا لهين الحق سكوت جري إننا إنه يلنا صدوق إنه قدر سنة وإنه وترتبه لفكورة وإننا قلت إنه سبعي سنة حليمي ما دعمه وحيالا سنة أيها حضرنا وعليه أنك لنا وحطره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لمن أنا ما تسببوا وقت السلام على بجوة الناس سويته وعلى السلام على السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله سبحانه وتعالى يسوي احترشه وما تعلمه وهو كان لرابطة فونديشن ولا هنا يعني قلت في رسالة كسرات أي ناتي أقلد هلا في البيان أي غير خاطر بينه أنت أنت يسوي لنا أيقان من يملأ علماء يملأ علماء المدارة أنت لا وحن هل كان كسر وحي وبيخبرنا إلى آيات سقراته ويعني بس قول كيس صلى الله عليه وسلم وحيالها علم يقين عليه الله سبحانه وتعالى وحيره يا هي علي محمد وحل عمري وحيالها إلهي يسلم وعكلها الله سبحانه وتعالى وحيره يقول رب زدني علما نبي محمد وعفتر على إله العلم يسيان نار له يسير وجه عار له يسير وجه واعترف الله سبحانه وتعالى يبي يستي واحد يستان عليه إلهي العلم يسيان علم يمكى الله سبحانه وتعالى وهل كان كفر فتقول كسر واحد هذا علم يسير علم ما رتويه يسير علم وعلى مقوله علم أساسي وعلم ما رتويه علم أساسي هو دينه قلت واحد رمضة غير سيديت الموت السكت والسوء هي علم فلترى وحكت ربها وحكتها لترى يعني واحد يقول إنسانك مارك عالمك ومعلمة مارك العلم وبلن واحد يقول بلحنا عالمه أما الجندي وفلته ولو عالمه لا مارك رزق لنوع أنا عالمه عنه مرد علم المادة يعني وحيالها كنت غير إنسان عنها أجلس العلم يكون تغيرا ومسوا حياتنا مجرى إنسان
مركا إله سبحانه وتعالى مركا أمانة رد علم والوزير قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأعتقد أن الله محمد مسلمين يكون علم ولا يكون علم رحيم ما مسلم دوامته ينوى لله هي السنة نقوله وجه الله ولا يذكر يكون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين يرفع لهم درجات كل يذكر يكونها وهناك الله يعلم الله سبحانه وتعالى يكون يلي وما كل الله سبحانه وتعالى وغالي والذين يرفع لهم هو علم الله سبحانه وتعالى تريد ولا يسوي الله سبحانه وتعالى قال النساء وذكر إلى علم الله يذكر وحده منه ولا يمكن أن تقول وإنما يحصل الله من عباده لا يمكن أن تأخذ إلهه وقال إله سبحانه وتعالى وذكر أي إله سبحانه وتعالى شكرا النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية صلى الله عليه وسلم إليه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يقول لا يلقى خير والخير لقوله يقول فهمسية مرجع هذا بعد تجيب مرجع معمولة كل عرضية أفضل سكورية شسنة حتى وغير معمول عوش إليه طلبات من فونديشن حياة وعيد سيسو دورين وعيد سيسو من فونديشن وعدد سكري وتغارها وروح بيهو وعيشة يعني كل لحظة حمالي وحماشة دور حيستا بدنا ولينا دور عشان يصير الجوجو وعطيه يسوي كذا فأنا وأتاني ومن فونديشن هاي وعمسوسه وكذا عمسوسه سيرة غير غير ويسوي بالجارية ويوجد جارية ماركة يوكي عمان جارية معاصة با يصير الغامر إلى كفكول وكفكول ووراه الجارية كسراني من فونديشن وأساس قفك استواء أنا معتقلا هي من فونديشن أعطيه مثل البيو والإنساس أوديا وغيره كل واحد وعن كلمة هذا يورو غير واحد مهتم بالمية أفراد سكول يولي ونحن نتكلم عبد الرحمن يروح كبيرو بس كلا رئيس علمي أنا لا يغشى لوجه في عيره أنا تعرف اللي يكون واحد ليس مليا وليش سكول بانتاي وعن سوق الفلوس فرق ورسوله كتعلم بسمه سواء أعطينا رأيه أعطيه كل واحد سبعين أعطيه طبعا وعنا بسكول أسم ماله عندك أسم واحد عارف يا أسم باقي ولكن وقصة بيانا يا أخرى تفر مشكورا وانتظرنا هنا دوره ما دام ربنا يقيم وقتنا علم ساتره كم من مغلو فونديشن أي كمية أريد أسمع أريد أن يكون لنا جوال كيلا بلارس كيسة إيوه أربعين سكول ختماتا إلينا هو على الغلاء إلينا يقطع له وأودي يقدرونه وهو يلا الحسين والوغتين ورنتي الحال معها قفكي سكول فراء وعلمت أصوى على حبسي وعندما يسافع بوضعها يمرت حبسي سكول الأفراد معناه اللي حبسي من أبوه وكحر الوطن فقال لم تعي سيدة وكا يحضر شيء وواحد كلية وقفت بن آدم كأوكوها رمالي كرة أحضر شيء وواحد كلية وقفت أوكوها رمالي كرة وتمثلا وعن بدلهن وعن حياة الغيران لهن مع تأصيل ودة الجباعة وكلا وعلى أولا أوكوها رمالي وحكمية ومحضر شيء مرتاح عن سنة إن شاء الله أرجونا النهارده في سكولتا محمد إسماعيل طوارق أدي واحد بطان سير الله تعالى إن شاء الله حرجينا نعرضه مستقبل تحريره كما نقول مستقبل جسده الحريره نقول أنت نوعه ومثلالا ساعتها يعني تاسو أربعة ما تحنا برتي وحاول لنا شخص حريره عن ترى مستقبل جسده يوسف شهوه وبنى الحريره ونسوي وكله وحبرشده وعندها كلية وقفت بن آدم كي يحوها في كروه مركا عن هذا قال حالتي قفت جاهلك كنت ما قرن كروه
صح وغلطك لكن قفت الوقت كله وان ترى أظن كلية وان ترى وده سارة وده قلبا وعلينا سن وعهم مركز لو بعيا وحرشلاس من أربعة كده الآن فلو بعيا فالعقل الآن والاستيلان وعقل إياه الإسلام هذه أنت كيف بتكلم وحرشلا يوجد إنه فونديشن كده وأجعلها كلمة كورن إلى الإرادة والدينتا والدينتا وهو يرتي دورين أي كلمة وحرشلا وأسكول كماتا كنتيك جدا بالسوق وحفي عما على انتاس وعلى بها اسكول كان يروح معه اسكول كان يروح معه وحقق شاه أرض ناجحة أرض الجيل الكريم أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الجن الكريم تقف أمامكم نخبة مختارة من بلاد مدرسة حاج محمد إسماعيل زوارس حاملين لكم من أول ما لدينا من البرنامج وأول ما نستعين به برنامجنا آيات من ذكر الله الحكيم نلقي على مسامعكم الله خدائي عبد الرحمن محمد عبد الله فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ننتقل إلى زهرة من زهرات المصطفى صلى الله عليه وسلم ويلقي على مسامعكم الله الدالب سيد علي محمود موسى فليتفضل يا أخي الدالب مشكورا ومأجورا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام الراع ومسؤول عن رعيته والرجل الراع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة الراعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم الراع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. شكرا لك يا أخي العزيز وغفر الله أنزاله فينا وجعل الله الجنة مثواه. أما الآن ننتقل إلى لفظ البرنامج ألا وهي الكلمة يلقي على إيالكم الله الدالب زكريا محمود في إقبال يتفضل مشكورا ومأجورا. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الموضوع يتعلق بالتربية والتعليم. الحمد لله الذي على الآباء والأمهات ثم تربية البنين والبنات وجعل الأولاد والزوجات ورحمة الصغار والإخوات أمانة في يد الغالبين عليهم من جملة الأمانات يسألون عنهم يوم الدين كما سألون عن سائر الواجبات والمحرمات. إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا 3 صورة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يرمي له بعد الموت. والله تعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. أيها الجمع الكريم من جميع المال ولد فأمره خيرا عظيما ومن شكر الله على نعمته كان منها وكان الله شاكرا عليما ومن صرف نعمة الله من معصيته صرفها عنه وذاقه وعذابا أليما.
يشاء ويقيما ومن أدب أولاده وأحسن تربية كانت اسم ونصائح نصائح الفضل عبد محمد بشير بشير صاحب المسير عاش في قرن الظاهر الهجرية وفي اسم في سنة 400 هجرية أحسن إلى الناس في الصادق قيوده فظهر ما السهر والمسهر والسهر وإن على دار الرياض الذي يعرف يرجو الرياض فإن الغرب من الرياض يكفي لغيرك بحل دينه وحكمة فإن الغرب من مخالفته ورسالة من السعادة بغير الله في ذلك فإن ناصره وعزه وخجلان من كان من خير من معه فليس له على الحقيقة إحياء واحدان من زاد بالمال مال الناس قادرة إليه والمال من إنسان كالتال من يسر شر يحسن في عواقبه فذلك ولحق الشر والإحسان وإنما ولا تدعوها إلا بالأفلاح واللذات فلما عاد الجامعات لبناء الغنمة والعائلة الشريفة حقيقة توصيف الآراء والمعاصي بتربية أولادكم ربما يأمركم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأخيرا لا يصير الوقت إلا أن يقدم لسعادتكم بشكر جزيل تغذية لمديناتكم في مجال التعليم لإيمان عدم في سبيل على بطل سبيل مثل وأرجع بني آدم يجيبون كده بني آدم يجيبون كده سعودية إلى دعوة لغاتنا كل يومية سنة في كل سبال بحل نحن وسيال فيه وأرجع بالنسبة معلمينك بمشيرة تهميرة الرسائل تهميرك ترموها حفظها الله ومساعدك إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم حوله وتعسير من توقع إله الله محب السكرة معلومة بيكون يمكن ما بعد أن يكون كأسف ومعلوم حركة لغسر الحقة وقوشيرة أسكون قصصته وحلوه لا حكير سنشان إله محبه محل رأيها المدن ورنخا ونسوى غربانين وغراب السكون كان سيدة نور فوقيشن وهذه هذا أمان ورمضان السلام مرحبا بنا سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن بدأ إليه تفضلنا وحالنا ولأنه إلى الإسلام إسلام خير مرة صبحها إذا قمنا ومجدد في مشكل وفي إليه وفي أخوة فأخوة البيت تقومون كنت سنقل بالغير وغير تعالى أخذت سنقل السورة الثالثة تلقينا لتكرنا كده إننا تجارين هي صاروا يحبكون وعرفت السهولة سبت الشكل على غيرها تكرنا ماذا هو عند وحتى أقول لك سورة الله عن هذه التجارة وهذا على هذا الرسول الدجال هم دجال ويمنع تلقينا حتى التجارة يقصر الغار صحيح مع بعضها إذا لقيت فيها حاجة اللي عنها ريال لقيت فيها تبدي أكثر دعوين إله هو اللي عن فيها يعني السؤال عاصي والغوصي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده خالق الحق والنوى لا إله إلا هو مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي لا إله إلا هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لا إله إلا هو يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد
نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأخيار ومن تبع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أضيف لموضوع نور فاونديشن أساتذة البررة، السيد مدير المدرسة، أمهات والطاهرات، آبائي الكرام، أبناء الطلاب والطالبات، أحييكم بتحية الإسلام ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية. أما بعد، ضمان متصرف كان سويتين مناسبة وحفرشه وكما موسن سنقول في سنة جمعية نور فاونديشن. وعن كل سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن باين هستين مرة بعد سلاحكم وعن أدرسوا في الكريستيان دمان. سلوكله وعن فرعنا مناسبة إن شاء الله تعالى، وأن نقول لنا يا سيد مدير المدرسة أستاذ الحاج عثمان المؤمن فليتفضل مشكورا. الحمد لله والشكر لله والثناء لله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، waxaan halkan ka salaamayaa marti sharafta ay ugu horeeyaan jamciyadda Noor Foundation, madaxeeda dibadda Saalax Yuusuf Xasan iyo madaxa xafiiska Boosaaso Cabdilcasiis Maxamed Axmed. waxaan kaloo salaamayaa dhammaan marti sharafta kale, hooyooyinka, waalidiinta, ardayda, macallimiinta, intaa waxaan ku culimaaadiinta, intaa waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam, xafladan waxay ku maamulsan tahay oo loogu magac daray jamciyadda Noor Foundation oo shan sano oo waxay tahay 5 sano oo jirtay ayaa maanta loo dabaaldegay. sharaftay noo tahay, iyaduna waxay ahayd jamciyad dadka banaanka baahidiisu waa badan tahay, dadkooda ugu taagay, weliba meeshii ugu darayd oo xagga tacliinta xoog saaray. waxay markaa waa soo dhawaynaynaa, waa maamuusaynaa, waa qiimaynaynaa, waa bogaadinaynaa. waana 5 sano guuradeedii asaaskii jamciyadda Noor Foundation oo waxbarashada xaggeeda ah. raggaas waxay ka damqadeen dadkooda in ay jahliga saaraan, waxna u qabtaan. banaanka baahdiisa waa koobi kara, laakiin meel aad u sarraysa ayay ka abaareen. ilaahayna wuxuu leeyahay harwan aqoonta qola ma horumarto, ilaahay awoodiisa inkastay tahay waa ilaa bilcilmi. qola ma dibdhacdo, laakiin waa ilaa biljahli ayay ku dibdhacdaa. ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. dadka aqoonta leh iyo dadkan aqoonta aan lahayn ma sinna. saasaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala inamaa yatadakaru inamaa yakhsha allahu min cibaadihi alculamaa. saasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. xafladan waa maamuusaynaa, waa soo dhawaynaynaa, waa qiimaynaynaa. intaa kadib warbixin yaroo kooban haddaan ka bixiyo dugsigan hadda 2 sano ayuu shaqaynayaa. waxaa la furay 2012 bishii 9 baan malaynayaa. sana dugsiyeedkii 2aad buu ku jiraa. ardaydii lagu furay 100 baa ka hooseeya meelahaas. waxbarasho hore way jidhay, laakiin waxbarasho habaysan oo tayaysan maysan ahayn. wax iska somad bay ahayd alxamdulilah, laakiin maanta waxbarasho habaysan oo wanaagsan oo macallimiin xisaab macallimiin aad u heer sarreeya.
أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتي الأجر العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق المصدوق القائد ما نمر بالمعروف ونهى عن المنكر هو خليفة الله في الأرض وخليفة الكتاب أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد الضيوف الكرام لمقدمة النور أسير المدينة المدرسة أساتذة الكرام أمهات الطاهرة أخوات الضلال والضالات وأيضا الصحابة أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم برنامج الإذاعية هذا المساء ونبدأ بالقرآن الكريم مع أختي حاول فليتفضل مشكور فليتفضلي مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تكفروا فإن الله غني عنكم يرضاه لعباده الكفر وإن تشركوا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعلمون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعانا ربه منيا إليه ثم إذا خول له نعمة منه نسي وما كان يدعون من قبلك وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر لأولي الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله الواسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم وبلغ الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والآن حديث مع أخ بشير فليتفضل مشكور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة قر محجلين من أثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يضل غره رواه البخاري ومسلم. صدق الرسول الكريم بلغت يا أبا قاسم. والآن شعر مع أخ أحمد فليتفضل مشكور. فإن الأيام تفعل ما تشاء وجب نفسك إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليال فما لحوادث الدنيا بغاء. قل رجل على الأهوال جلدا وسيمتك السماحة والوفاء وإن كسرت عيوبك في البرايا وجهك أن يكون لها قضاء. تستر السخاء فكل عين يغضيك باقي السخاء ولا ترى للأعادي قد الدلا فإن شبعت تل عجائبنا ولا تغدي السماعة من بخيل فما في النار لظمآن ما إذا ما كنت ذا قلب غنو فأنت ومالك الدنيا سواء. أصدق الشعراء قول البيت حيث قال على كل شيء دون الله الباطل. ولا شيء الصومالي وما أخ لله فليتفضل مشكور. ninkii kada wasoorka habaaska miyuu dhaxlaa qurulaha horey buuray barwaaqada haysanaya intaa rugsan lahayd gayaas hareerta ka raac miya ilmaha irbuuda ka socdaa hankaaga fogey miya hawshaada ku toos miya rusimo halbaa la siistaa halkii daran baahidaada hantidaa loo qashay miya dantaadu mahayaya indhoolaha haga miya waxaa irka lagu ajuuday waxaa badaha hogmaaya bidaaso buntooda hoose waxaa wadiyihii haluusay waxaa jahligii halloowey waxaa gaajadii hardiyey horseed cilmiyeedaya dadka eegada isgeeyey dadka qabiilka gaaray. أخذت ولا نسينا كأخطاء فليتفضل مشكور. رسول الله عالمنا وبالقرآن عالمنا وأنقذنا من أجله وأنقذنا في سمنا نسينا كل ما نرى وعشنا العمر في تقوى وبل الإسلام وعلنا خسرنا ذات الأحبة.
qaabkaad fiican ugu turjumeen cilmigii lagu socay waxaad tihiin madaxdii barito macallimiintii barito injineeradii barito dhakhaatiirtii barito aqoon-yahanintii barito ganacsatadii barito waxaa laydinka rabaa inaad sidaa u barataaneen inaad dadaashaaneen inaad ardada kale oo magaalooyin kala tufurtaaneen salaantii ugu wacnayd oo wanaagsanayd salaamu calaykum wafdiidana suubanay mahadinaamaane mahad baanu celinayaa madaxda foodheeshin mahad baanu celinayaa ragga la maalgeliyey mahad baanu celinayaa haraadkii laga baxyaa hawlyaraa la degay macaalimiin eegana hawlkaraa la helay waxaana la habaasinaya noqdaga harqaday habeen iyo maalin nimanka hurdada ka go'ay ina horseedaya taariikhda lagu hormaro mahadilaabaane mahadbaan celinayaa madaxda nuuraadan mahadbaan celinaya nurfadheeshin halaaraato nurfadheeshin halaaraato mahadilaaba alay irsaqiisu mawjad yahay mahadilaaba alay irsaqiisu mawjad yahay mugdigii waa laga baxee maamul baa la helay macallimiin horamadhee haybataa la helay macallimiin horamadhee haybataa la helay macallimiin horamadhee haybataa la helay mugdiga noo soo baxee midigta noogu jira siraaca bixiye macaankiisi noo dhadhamay shirkada maalgelisa iyo maamulkiiyo guddiga ardada mintidaysa iyo macallimiintayada madaxda fedhayshin macad baanu celinayaa mahadilaadaale maasha allah mahadilaadaale maasha allah maasha allah maasha allah idin iftiimiyo Nur Foundation maxay tahay sidoo jamciyadda Nur Foundation maxay tahay hore baa laydinku sharaxay rag badan baa halkaa idinku yimi markii iskuulka la furayay markii la dhisayay kolley intiina badnaa ka ragsatay laakiin waxaan rabaa inaan idiin sii jilciyo Nur Foundation waa dad idinka mid ah oo dadkiina ah oo isku tegey oo ka dhiidhiyey waxbarasho la'aanta ka jirta deegaanadoodii waxaa la aasaasay 2009kii waxaa la fiiriyey maxaa Nur Foundation qaban kartaa ama dhalinyaradaas raggaas waxay isku yidhahdeen maxaa la qaban karaa xilligaan dhulkeennii ka jira waxaa la istusay waxyaalo badan ay jiraaneen oo dhibaatooyin badan oo dib u dhaca oo aynu deegaanada kaga dambayno oo dadkiina ka hormaray waxyaalo badan baa la tusay hadday waxbarasho aan lahayd hadday caafimaad aan lahayd haddii biyo aan lahayd iyo hadday dariiq aan lahayd hadday waxqabad kale oo buuxa aan lahayd waxaa hal mar lamada qaban karo say u kala awlaysan yihiin ama u kala baahi badan yihiin baa la isla fiiriyey waxay noqotay in waxbarashada ay qaataan oo dhan bal aan waxbarashada xoogga saaro maadaama oo waxbarashadu tahay tiirka koowaad oo wax laga asaasi karo ama ay tahay iftiinka nolosha oo qofkii wax bartaa isagu waxyaalaha dhiman oo kale uu qaban karo jamciyadda Nur Foundation halkaa waqtigaas lagu asaasay waxaana lagu asaasay inay dadka la tuso in dadku wax qabsan karo tiirarkeeda loo wax ka mid ah oo dadkeenu wax ma qabsan karaa oo inagu aan hay-ad ama dowlad ama cid kale inta maanta wax ka doono war inagu wax ma qabsan karnaa waxaa la istusay haa waa qabsan karnaa haddiina dadaallo oo ikhlaas iyo dadaal iyo inaynu isku tashano aan xoogga saarno waa qabsan karnaa waa aragteen 2009kii 2010 iskuulkii qandala oo cali faaye geeti bay hirgelisay waa la furay 2010 iskuulkii baldin xaaji cabdullaahi belaaji xaaji cabdullaahi baa la dhisay oo dib loo furay 2012 idinka oo timirsho ah baa iskuulkiinii qaybta saddexaad noqday waa inaa maadis 2013 ilaa 2013 iskuulkii xeeroodo hadda iskuulla u dambeeyey baa isagana la furay
halkaas maalintii laga bilaabay 2009 wax gacanta loo hayay ma jiro waa la soo shaqeeyay dadkaas oo jaariyadahaas u badan wada imaaraadka ingiriiska iyo Oman iyo jaariyadaha kala soo raaca baa isku tashaday oo waxay dhaheen dadkeenii aan wax qabanno ilaahay mahadis way maanta haddii jirto afar iskuul iyo 1000 arday oo ay gacanta ku hayaaneen oo aan la'aantood ama idinka la'aantiin hadday shacabka magaalo kasta shacabkeeda idinka la'aantiin haddayna idinku joogno ma qabsooneen isku gaareen lama dhismeen mana socdeen leanna haddayna idinku soo dhowin haddaynaan dhulka bixin haddaynaan idinku ka qayb qaadan ma jireen mana socdeen waalidiinta iyo odayaasha iyo dhammaanna arrintaa aad baan uga mahad celinaynaa marka Noor Foundation hay-adii wax kama qaato dowladda wax kama qaato waa dad isku tashaday oo iyagu isu xilqaamay inay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaaneen halka haddaan kaga baxo tacliiq Noor Foundation su'aalaha marka la weydiiyo saasa kaga jawaabaysaa haddaa aragtiin iyo haddaad tihiin dadweyne tan labaad waxaan rabaa inaan reer Tuulshe kelmad iraahdo reer Tuulshe aad iyo aad baa umahadsan tihiin soo dhaweynta aad soo dhaweyseen iskuulkan oo aad weli wadaaneen oo aad weli u taagantiin inuu socdo sidii laydinku keenay aad u qaabisheen oo idinkuna aad hore u marisaan waxaa laydinka rabaa ardada iskuulka keena baadiyaha jira kan magaalada jooga waxbaran inaad dugsiga keentaanin inaad ka faa'iidaysataanin oo si fiican ardada loo keeno maanta 150 buu inoogu sheegay maamuluhu inaa 200 inaad gaarsiin karaan gaarsiisaanin waa dadkeena qofkii iskuul magaalada isagoo furan yahay inuu ka faa'iidaysto oo aanu ilmihiisa wax yar oo fiiya ama aanu ka dhaqaalaysan odayga baadiyaha jooga iyo habarta baadiyaha jooga ariga geel loo raacayo la yidhaahdo carruurta qaybkeen oo carruurta qayb wax ku barato oo arrinta aad xoog iska saadhaanin oo wacyigelin fiican samaysaanin hawsha aad wadaan oo dhinaca dugsiga iyo macallimiinta ka wadaanna aad si fiican usii wadaaneen sidaa hadda wadaan iyo si ka fiican waa wadaaneen oo si fiican baa wadaaneen oo ilaahayna ajir baa ka garaysaanin jamacadda Noor Foundation oo idin hirgasana waa idinku mahad celinaysaa dadkiina iyo dalkiina taariikhda idin umaysa qor marka reer Tuulshe waxaan idinka rabaa meeshaa joogtaa tartan baa lagu jiraa xiriiro reer Tuulshe reer Baldir tartan baa lagu jiraa haddee qolo kasta tartankeeda waxaa loo haraa inay kaalimaha mar baa jirta Noor Foundation bixi doonto jaa-isooyin magaalooyinka ah oo magaalo kastisay u qaabishay iyo meeshii wax la marayso tartanka inaan laydinka dheerin baan rabaa oo aad dhexda iska hedhaaneen haddana waa fiicanta tan labaad waxaa la rabaa Noor Foundation innagoo dhan ba ah ma aha dad meel ka yimi innagoo dhan intii naas meesha fadhida hadday ahaan lahayd shacab hooyooyin dhalinyaro odayaal Noor Foundation idinka wada qof kastoo idinka mid inuu ka qayb qaataan kii dhaqaale ka qayb qaadanaya kii taageero kale ka qayb qaadanaya inaa ka qayb qaataan maamula marka reer Tuulshe shaqeyn baa inoo balaba inaa hawsha bulshada kasta ma inoo balaba saas inoo balaba tan saddexaad ardaydan lahayaa kelmad leeyahay iyagana arday magaaladiinii hooyooyinkan iyo waalidiinta joogeen baa iskuulkaan idinku yimi جمعيات Noor Foundation baan idin hirgelinayaa kii dhaca hadda luus noqdaan bana ciidu jifaya marka waxa iyaga ka faa'iideystanin oo ragina ardayda ka dhalinyarada kala duwan magaalada joogta ama maqan waa wax baran ama ku dhiirigelisaan waxbarashada oo taa iskuulada kaalaya oo iskuulada dhigta idinku aad daashaan rag iyo dumar kaalinta ka soo baxdaanin dadka maalin annaga haddaan nahay Noor Foundation idinkaana bedeli doonaa jiilkana bedeli waa idinka inaad diyaarasaan dadkina bedeli lahaa oo dadka u qaban lahaa inaad diyaarsaan baa idinka rabaa idinkana saasaan ku darmayaa dadaal wacan insha allahu tacaala tartankan afraad waa gabagabadii insha allahu tacaala waqtigu bas gaarayahay Noor Foundation sanad guuradeedii waxaa noo farxada annaga haddaan Noor Foundation tiim ka socda iyo reer Tuulshe inaan galabtay halkaan oo bisha tahay 10 maalin isniina aan ruuti baan tegayno sanad guuradii shanaad ee jamciyadda Noor Foundation waa inaad maadiis aad iyo aad baan idin salaamayaa mar labaad macallimiinta iyo maamulka aad baan u salaamayaa waalidiinta iyo ardada iyo dowladaha shaqada aad baan u salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu اللهم صل على محمد لا من ما بيلا رسله عن سلام يا
dadweynaha meesha isugu yimi ka kooban marka ugu horeeya ururka Nuur Foundation waxtarka iyo maamuuska iyo qiimaha loola yiri korona noogu qabtay dibna loo qabtay aanu hadeerna annagu ku dhex jirro waa mahadsan yihiin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu kor yeelaa cadowga ka nabadgasha dhibaatada ka nabadgasha waan ilaah ka baryayaa tan labaadoo kale waxaan soo jeedinayaa annaguna way ka faa'iidaysta ka sheekaya ku horamara way noogu dhogaan ilaahay naga soo saro wax naga dhigo ka saddexaad waxaan xubinayaa macaashii limaan Nuur Foundation dhadhaminay waana ku dhex jiraa waa mahadsan yihiin mahad ilaah baane laakiin mahad baanu idin celinaynaa ballaaran oo duca xambaarsan waxaa naga dhiman waa garanaysaan waa idin dhacaysan isbitaal ma haysano bahashii lagu qaadi jiray oogtahay maamatada lagu qaadi jiray ma haysano isbitaal ma haysano carruurtayadii haweenkayadii sidii baabuur loogu garaynayo ur caleed baa maydkood weeyaan ur caleed baa maydkood weeyaan taas waa awoodare carruurtayadii iyo haweenkii oo dhadhanayay urtar iyo boosaasada maydkood wadayaan oo riweed wadayaan waxaa noogu wacan daawo la'aan waxaa noogu wacan cusbitaal la'aan waxaa noogu wacan awood la'aan ee waa qabsan lahay haddaan wax qabsanayno waray nooga muuqan lahay waxba qabsanayno masaakiin baan walaalihiin ilaahay waxaan ka intaas inta timina وحفظتاس iyo ka soo qayb gashay dadweynaha salaam ku filan oo daaqda oo duca xambaarsan baan u jeedinaa ilaahay idinkiis intii ma tara Allah u naxariis barwaaqo baydi iyo badbaashay ku noolahay isku waraysanayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله على نعمة التعليم إله ما هذله وحنا هالكن كسلام يا دوميا دقمة تمرشة وضياشة ويوينكا أنيرارا أرضا يوم معلمين تا رمان وحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan jeclaan lahaa inaan mahad u celiyo ardadii halkan ka soo jeedisay barnaamijkii qayimka ahaa oo runtii ahaa barnaamij aad u weyn ardadaas waxaan leeyahay waa mahadsantihiin runtiina waxay soo bandhigeen wixii la baray ugu horreyn haddii aan ka hadlo Nuur Foundation hadeer waxay gacanta ku haysaa ama maamushaa 4 iskuul iskuulka Qandara oo loo yaqaan Cayfaaye Geedi iskuulka Tibirshe oo maanta aanu ku dhigayna xafladeena sharafta leh walado Sheekh Nuur Cali Culow iskuulka Xiriiro oo dhawaan la furay iskuulka Badidin afarta iskuul oo tiraan ardada ku barata gaaraya 1000 arday ay gacanta ku haysaa jamciyadda sidoo kale waxay qayb ka qaadatay shaqo abuuris iskuulkeena waxa ka shaqeeya macallimiin fara badan oo ka yimid waddanka Soomaaliya oo idil aan ku koobnay Puntland dabcan shaqo abuuristaasna qayb ayay ka tahay sidoo kale jamciyadda macallimiinteeda kaliya kuma koobna inay mataqaanaa iskuulada wax ka dhigaan sidoo kale waxay ka qayb qaataan arrimaha bulshada haddii ay noqoto wacyigelinta masaajidda oo kitaabo ay ka aqriyaan arrimahaas oo dhan way ka qayb qaataan macallimiinta maanta halkan waxaan isugu nimid inaan xusno 5 sanadoodii ururka Nuur Foundation runtii Nuur Foundation waxqabadkoodii maanta mirihii ay beereen waa tan maanta aan cunayno waana ku faraxsanahay Nuur Foundation aanu gudbo waxbarashadu waa furaha nolosha qofka bini'aadamkana wuxuu ku horumari karaa inuu wax barto qofka aan wax baranin
iyo qofka wax bartay ma ahan wax siman ma aha saa wada ogtihiin qur-aanka suuradda ugu horeysay akrinta oo waxbarashada ah bay ahayd suuraddii ugu horeysay ee la soo dejiyey waxbarashada ahmiyad fara badan bay xambaarsan tahay qofka bini aadamkana wax qiimaha uu leeyahay ma laha haddii uu mataqaanaa waxbarasho uu leeyahay qiimo ma laha bini aadamku wuxuu go'aansaday inuu qayb weyn ka qaato sidii uu la dagaalami lahaa jahligaas waayo jahliga waa cudurka ugu xun ee qof bini aadam ku dhaco jahliga waa cudur aad u daran qofku uu haleelana daawo ma laha wax daawo ah ma laha sidaa darteed Nur Foundation waxay go'aansatay inay la dagaalanto cudurkaas aafada ah oo ah jahliga waana baahida ugu muhiimsan ee dhammaanteen mataqaanaa loo baahnaa in wax laga qabto haddii aan intaa ka gudbo waxbarashada iyo faa'iidadeedu waxaan u gudbayaa oraah ama kelmado yaryar aan u jeedinayo waalidiinta iyo ardada ugu horreyn waxaan ku hormarayaa waalidiinta waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay inaad ku dadaashaan waxbarashada ubadkiina ubadka aad dhashay mustaqbalka waa hadba hadeer sida aad ka dhigto haddii aad wax barto mustaqbalka waxaa kuu soo baxayo wiil aqoon leh yaqaano mataqaana waxaa ka mudan tahay xasuusta mataqaanaa korintiyaankii aad soo korisay laakiin haddii aadan wiilkaaga wax barin waxaa ka imaanayo mataqaanaa wiilkii inuu noqdo mid aan waxba ku tarin marka waxaa loo baahan yahay ubadkiina inaad wax bartaana loo baahan yahay waxbarashadiisa ku dadaashaan sidoo kale waxaa loo baahan yahay waalidiinta inay ku xirmaan iskuulka mar walba waxaa loo baahan yahay inay yimaadaan iskuulka bishiiba mar isbuucii mar inay yimaadaan wareystaan macallimiinta iyo maamulayaasha macallimiinta waa inay weyn inta haddaan kaga gudbo kelmadii yareed aan u jeedinayo waalidiinta haddeerna kelmad kooban baan leeyahay ardada ardada way maqlaysaa soo maha ardada waxaan leeyahay maxaa lagaaga baahanyaa marka koowaad aabe iyo hooye waxa weeye buwaagay ku soo iibiyeen waxa weeye raashinka guriga ku dhigeen intaa waxaa lagugu sameeya inaad wax barato soo maha marka waxaa loo baahan yahay waxbarashada inaad ka soo baxdaan aabaha iyo hooyada waxaad wax ku tari kartaa ammaanadii ay kuu dhiibeen oo ah inaad wax barato inaad ka soo baxdo number 1 ammaanadaas waxaa ka bilaabaysaa inaad noqoto arday tarbiyada ay ka muuqato waayo tarbiyada iyo tacliinta mar walba waxaa horeeya tarbiyada waxaa loo baahan yahay marka tarbiyada inaad ku dadaashaan oo magaalada markaa maraysaan ardayga iskuulka dhigto iyo kaan dhigan in la kala gadaan loo baahan yahay wax badan aad mataqaanaa ardaygaas oo aan iskuulka xaq mataqaanaa ii sheegaan imaanin loo baahan yahay inaad iskuulka sida u imaan lahaa ka shaqaysaan sidoo kale waxaa loo baahan yahay sida mataqaanaa ii sheeg inaad iskuulka ugu dadaalaysaan oo kale inaad qur-aanka barataan oo ayadna ku dadaashaan kaas mataqaanaa ii sheeg Nur Foundation ay idiin fulisay kelimadeeda intaasaan kusoo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxda Nur Foundation ka socota jamaacadda ka socota dibadda waxgaradka ardayda dhalinyarada kulliba waa salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka tan ugu fiican assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdu waxaan ii sheegayaa maanta waxaan u soo dhawaynaynaa oo halkan xafladan shanjirsatay oo jamaacadda Nur Foundation maanta shanjirkeedii lagu maamuusayo xafladan lagu maamuusayo oo madaxdii dibadda jirtay oo ka mid yahay madaxdii Nur Foundation oo ka mid yahay Saalax Yuusuf Xasan maanta halkan inala joogo aad baan u soo dhawaynaynaa waxaan nooga mahadcelinaynaa inta badan iyo inta joogtada xafladan reertuugshe maantay halkan lagu qabanayo rag dumar haween waxgarad culimo kulliba joogaane aad baan u soo dhawaynaynaa madaxdaas meeshaan nagala qayb gashay aad baan u soo dhawaynaynaa marka labaad waxaan leenahay annagu waan aragnaayo waxa jira waan u jeednaa haddaan reer tuugshe nahay dadku hadde bini aadan weeyo qof wax garanaya iyo qof aan wax garanaya kulliba waa jira laakiin waxaa dhacda
raggan haddan iskoolkan maanta aan harsanayno dhisay oo hantidooda ku dhisay waxa dhacda iyagu inaga taasoo kale soo marin laakiin hawl badan aabbayaashoodii iyo hooyooyinkoodii iyo ay la soo mareen innagu marka nasiib waxaan u yeelana maanta dadkeennii oo wax bartay madaxdeennii oo wax baratay culimmadeennii oo wax baratay inaan halakan hadda marka waqtigii horeeto waxaa loo aadi jiray meel la yidhaaho saliid yaman iyo baa waxaa loo aadi jiray waxbarasho diintaa loo aadi jiray maadigana looma aqoon marka aynu aqoon maanta marka waxaan mahad u celinaynaa oo ilaahay uga mahad celin mahad ilaa abaale iyadoo inoogu timid gurigeenni oo tiirsho ah oo maantay daleeshaan oo awrta dhaanka ah iyo dadka geedigaayo mari jireen maanta ay tahay xaflad weyn oo adduunka oo dhan laga daawan doono maanta ay ka dhacayso oo dadkeennii ay waxa inoo qabteen innagu xigmadeenna kuma helin hanti aanu leenahay ma gelin laakiin dee dadkeennii baa inoo soo gurmaday waxgaradkeennii baa arrintaa fahmay aad baan ugu mahadinayna waana ku soo dhaweynayna marka labaad waxaan soo dhawaynaynaa kaalinta ay ka qaateen waxgaradka iyo haweenka iyo dhallinyarada iyo dumarku ayay arrintaa ka qaateen iyo xafladda ay soo maamuuseen oo arrintaa aad iyo aad aan leeyahay kaalinta raggu ka qaatay aad bay kaalinta dumarku ka qaateen uga muhiimsanay waxaan idiin sheegayaa waxaan u malaynayaa arrinteena waa aragtaa waxaa laynoo ku yimid dhulka hadda nimankaan hadda madaxda ah oo meelaha ka iyo dhulkay soo mareen dee waxaa dhacda inay dhul khatara yihiin inay yihiin dhulaan la mari karin inay yihiin dhul inaan run sheegnaa wanaagsan waxay u soo mareen intaa hantida ay baxsheen iyo dadkoodii inay wax bartaan iyo meesha wax ku baxsheen inay soo ogaadaan innaga marka waxaa layna ka rabaa arrintaa inaynu si fiican uga qayb qaadano inaynu si fiican dee ilmaheenna wax u baro inaynu si fiican u waanino ilmuhu haddii run la hadlo gurigu ka dhisma inaan run isu sheegno weeye nin walba ilmihiisa haddii maanta nin ilmihiisu dhan wax u barto kan kaleeto berigi oo dhan ilmahaygu ujeedda macnaha si kale u haray maanta meel la wada mari karo baa la jooga sababtu waxay ku tahay nin walbi ilmihiisa maantay magaalada waa nin walba waa degan ama guru ku leeyahay ama ehelkiisaa jooga waxaa la rabaa dadka miyiga jooga in loo yeeraa in arrintaas aad la isugu taqriibiya si weyn iyo si weyn iyo si badan in la isugu taqriibiyo waxaan idin sheegaya arrintu waqtigu waa gabaabsi inaynu si fiican uga qayb qaadan arrintaa inaynu si fiican uga qayb qaadan waxa laynoo ku yimid innagaa layna waada gelinaya runta aynu sheegno innagaa wax layna ka rabo innaga danteenni baa waxaa la rabaa inaynu sii socodsiino oo layna kala hadlayo hadda ma dhabo in inagu aynu cid wax tarayno laakiin innaga danteenni baa layna kala hadlayo iyadoo waqtigu gaaban yahay mar labaad iyo mar saddexaad kulliba waxaan salaamaynaa dadka jamaacadda Nuur Foundation oo hadda madaxdeedii joogto inta maqan
والذين إذا أنفقوا لم تسرفوا ولم تقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم قد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم جزاه الله خير الجزاء سعيد. إنك أنا وأخسر ويليا سوى حفلة الغفرة ومنعها يسكنك بعدها يتراك الدور. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد وهناك جامعة الجبدة ومكانها سنة حسن والوالدين تعود سجوا والولي وعلوان المعلمين أرجاء نورنا وعاشا بعوضة بلاد المدين قال سعادتها إن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامة بعض أكرم كل موجود مدرسة حاجة الله الابتدائية والإعدادية والثانوية ومدرسة السنة الماستر والمنشور حياة الدنيا يوم فاونديشن اسمها ومدرسة مدارس مدرسة التعليم الآلي في بورتلاند بريفرد إديوكيشن نتورك دولة البلد. اسكول كان حاجة عبدالله وسنة يوسنة وعادتا الدين تنظر الغالي سنة بقول يتدمات المعدين اسكول مروحة مصر الرياء جلاسك فوهون أما جلاسك سجالات سنة كيوة أيها الله يسير وكله بدأي سنة بلسكي سيارة بورتلاند وهنا بدأي كانوا مروا بعد سوء هذه على الجو اسكولا ولدتي سنة عن كلامه وعلى كان هذا الجلسة عن يوم سنة وعلى حرب ودور المعلم يدور الغالب. ما هو دور المعلم وما هو دور الوالد؟ كان انت معلم بحيث كان انت والد بلي بحيث وانتي سيدنا رسول الله اسكول كان واحد انت لنا هرب بلدين وهي لو والد واحد بلي سديد سماء والدك الأب الروحي يا الأب الجسدي
والدك هويديس يا به ووالدك سموات والدك سموات هذا ومعلمك سا مثلا دمتي واحد والدينتا كأسر إلى قلت إلى وكبر إلى إن العروت لسرعان وحبرشة أنت يمتلك الدوام أنت يلعب الدوام أنت يريها الدوام أبدا كنتي من على أوله إن الطبيب والمعلم كلاهما لا يصحان لأحد إذا هما لم يقيما تفترق يعلمك قفك حوشة يكرا قفك إلى الكلاميان مركز معلمك أنت وعليه معلمك ساسي كنتي عشاء عليه كل ساعة عملتها هدي أنا شرب أدي ما شاء الله أدي قلت لها لا تتعاهد وحد والدين تبعت إلى أول عجلين كلها إن عملتها دور أول كانت أول والد كواحد وإذا النار فكانت أول معلمك والدك وإذا النار أيها كانوا أنتي لأن الحي والأمور وإلى آخر ساعة مدلوها أنت بين مدلوها إلى مركز عروتها إلى نسعه وحبرشوه ونسعه مالك وعلمينك دائما حلم بنسل صغيره أنت أخيان والدين تقولون إلى واحد هذا الجنة كسر الوالدين ما علينا أربعة علينا هي الخير نور فونديشن نوتي واحد اسمه واحد مدرب وتعامل كرويه سكول كان كذا الجنور وإيطاليا ودول سنة هذه وحبرشوا تكسير وسنة لحياة يوسنة كنت أعلم واسيه هذا الفورميشن يخيرها مروا يمرها يمسح هذا حفلتي نواريو بتاعي أنت سير مسؤولنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجوها موضوع صديق كلمة أمام بنايا إلهي سبحانه وتعالى خير الجزء اليوم عليه الوكيل سبحانه وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان سكر رزقا والعسل يولد سكر رزقا وليس الكريم الذي يحدثها بيننا وحضرنا هي معمولية يحبون معمولية أي حقوقية معاك الشيء وكل مقايهين هويكو حلقة بيدا بارتي وساريهي وحضرنا هي وحيالها قشبه وليسجوا اليوم ويكمل تحي كبضوا إيبادة معي ووحدة إلهي كامل إلا وحدة أو الذنب إيادماتة إيادتها وعن سلام يا أنس موليشن يكسمونا وياشا بالمرة لليها واليويكا وعن سلام يا سلام الإسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وعن سلام يا أبنت وكتير وقرشا ورشا إلى مهوها يا دنيا وقرشا رشد أبو في عمتي أبو في عمتي سفر عمتي يكسر تلفوني وأمر فلوسنا وأمر يحسن وحياة أرض وفرح وما نزلنا مرات وصواتيكي كوا ومدى كيفو أرجع الإنه وأرجع أرجع بسيوانينا وأنت المسلم بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما وصل بما وصل على الرؤوس في المغل على الرؤوس في المغل قلوبنا هي المحل قلوبنا هي المحل ويا فسيح موعدي ويا فسيح موعدي ويا فسيح موعدي ويا فسيح موعدي
وأما امتحان فويسديو ترتر كاسا كوجيتا وعلوه هاي ترتر كاسا كوجيتا وصيني سنكي وعضلي فرقا نسبيلة لها كوشة يسوه وينه وكله ولا يسوه يسان سنكي ووصفتا واحد عاي نسكوله كلها امتحان وعليك علي سنفرواسك وقبضا امتحان نسكوله وعليك علي تلاقى أكبر لكن مدينة واحد على مشكلة لما وقت مقاومة على عضلية يسلوه خاصة عندي إننا نكون كتير إسكاشي مثلا سويات معلمينتا والدينتا مثلا عضلة يدوشها كلها دماغ والدين أنت تريد أن تكون عضلة وعلى ما يكون والدينتا والدينتا وحولي مشيك كثيرة مثلا عايشة كشغلة عضلة وخطأ هذا الأمر يعني هذا يجوا القدر ويقول أن المتابعة متابعة هو هذا يعني أقول يسوي كذا شيء هذا على شيء وهذا أصلا متابعة هذا وحشيسة يسكون قوارع في هذا يسكون الإمام بشيرة وأنا أقول علميتا معاوتا وأقوى يستا حتى أقرصنا مثلا أول كان ماشي وقوى اليوم هي الجسد وعلى هذا الجاهد إن وارد أسر أقول أول كيسة فصل ويجوا هدي له ويجيو كل كلام يسكون بيتا وعلى هذا يسكون على هذا يلقون بالدين لكن هدي له ويجيو فصل كيوي وعلى هذا ينتهى إن يسمع أقول ترى هدي له وتاعي رب العالمين علمنا يا رجع ولا يقول يسكون كلامه عارف كيسة وحشين سنة كيسة وحشين وصلها ما أعرف أقول لك أقول عارف ليش ما أسوق يعني إن مثلا أنا ما أسوق يعني ولا ما أروح أنت أصلا وعلى تدرج وعن والدين توصل جيرانه وعن كل أصل اليوم يسكون في كلنا عبارة عن كل حياة كتبتي وأنا أقول أحسن هاي عبارة ملارا وأنا أقول إنه شخصنا بقول يوروكا يوز فاونديشن هاي فاونديشن شخصنا بقول كم سكول كم مرة عليه تستوشر توصله هاي ناي هاي يريد وكا دولة عن سياحين وكا كذا هاي أمور هاي يريد وكا سيد وكا دولة عن سياحين هذه كلام كذا ديانا وأنت أصلا صنع ديانا وكذا وزي ما بقول لك الحجاج ذاته لكن سيدورو دولة فرعنا أمام كلام دولة الحياة سيد التدريسي وهذا الجامعة المغطية هم غطاء عتيد إنه أحضر عتيد جديد لكن أنا أستعد المفروض أنا أحضر رمو فأرسل لي أحضر رمي هذا ما أنا فيها فأحضرنا أحضر إن شاء الله أنت سأقصد بالدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم معمل الإملاء معمل معامل دستورك جميع أفراد الإملاء أوليك أعطياتك والدينك ورنا عملك ورنا ليلة ورنا عامك يجمعنا والشركة حتى أسلم عن السلام يا صلاة السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي إمام عبد حركة عن رابط الرسول كهذه ونكوسي وسيداء وما دعينا أولا مركز الله عما دعينا تذكي سورة من عبد السبيعين عبدا والرابط يقول براقين إنه سنجمعني جماعة يقولك مركوليشن أمامه عندنا تحديث ومعارضين وعلى كلمتي بالعربية مركوليشن أساسي إمامي لجوالي مركوليشن وقرانين إنك هذا جيس مع أركان وعما يعرف وكل هذا الأركان يتمارو وشكرا لله يوم ده ما حصل نقوم بسرعة شيء كوار وعلى الإسلامين وقت القرآن
ay dhulka noolay ku samaysay iskuulka awada joogno oo janaaka xaga cabdilaahi lagu magacaabo sanadkii xigay magaalada bilshe oo aan iskuul lahayn iskuulka waxaa ka adartay waxaana la yidhaahdaa iskuulkaasi magacaabo hadda australia sanadka ugu dambeeyena deegaanka ciidamadu ay ka asaartay iskuul kale oo qaabka gobolsan oo loogu magacdaray maxamed ismaaciil jawaari isagana waxaa socdaa qofkiisu waa socota waxay ahayd maantii nuur foundation oo ka socotay hadday maanta afar iskuul iyo kun arday gacanta ku hayso oo ah dhammaan deegaamada reerkudego inta badan nuur foundation horaa lagu sharcay u yahay nuur foundation waa dadkiidii oo ka dhiidiyey jahliga iyo aqoon-la'aanta iyo dibudhaca aynu deegaamadii kale ka hadlay oo arkay maxaa kelu baaya waxay u baahay waxyaala badan oo hore kusoo sheegayey waxbarasha ka mid ah caafimaadka ka mid ah biyaha ka mid ah daryeelka ka mid ah wax badan oo bulshadu maantay laakiin nuur foundation waxay isu qaatay oo go'aansatay badanayay waxbarashada xooga saarto si loo helo dad iyo berri waxaa kale wax ka qabta haddana iyagu kalaanaya qabtaani waana hadda waana jidka u jira nuur foundation inuu dhinaca waxbarashada xooga saaro si loo helo dadkii midada aaday oo injineerada iyo dhaqaatiirta iyo madaxda iyo wasiirada iyo ganacsatada wax kasta iyo waxaa lahaa si loo helo waa dadkaas way ka badbaadaan jahliga waxay ka badbaadaan dhibaatooyinka hore oo ka jira siday uga badbaadaan marka nuur foundation tacliimeedu waa saana way ogaadaan hayad aanay wax siin qof shisheeya oo kaleeto oo kula la-aanayo inuu yahay leeyihiin dad keliya oo ka yimid aqoon la-aanta iyo dhibaatooyinka dhulka ka jira haddaa ogaataan dhulka deegaamada kaleeto tuulo kasta iska degmooyinka tuulo kasta waxaa laga yaabaa jiraa ay leeyihiin inay dadkooda dadkooda qabtaan innagana insha allahu tacaala bilowgeeda fiican waxaan isku danaynaa insha allah waxaa naga dhimana dhammaan waa ku jiro taataanka ka dhaco waalidiinta kamid ah waalidiintu waxa weeye howlwan haddii iyo haddii abayaaliyiin waxbarashadu waa shay qaali waalidiin waxaa laga yaabaa inaad ka qorteen waxbarashada cunuga halkayno waxay bartaa waxaa laga yaabaa inuu reerkinaca qorasho waa axin markiiba kalku tahay waxaa laysa doonayaa inaad caruurashada soo wajaanin amaanadu isu ugeeyo aad ku wasaanid anidan haddii idiin waxbartaan loo soo aadinahay saa waad marka waa nidii waxaan ku daamayaa inaad ugu tacaanin waxaan u waxbartaan soomaalidu taanka ka bao caafimada waana kamidaago arday waxaan isku yidhaahdeen in gurigii maanta oo maanta uu doomo dugsigiisa leenu ku jirno waa inaad raajaanin hadduu yahay xalanada iyo hadduu yahay kasooga leeyahay waa inaad raajaanin saa iyagu dowladda maalin baabuurka magaaladiiya ama diyaarada dowladda uu leeyahay aaduma bartaani waxaad kuwa gadaha bedel lahaa waxaad dhaqaatiirta dowladdu waxaad madaxda dowladdu waxaad wasaarada dowladdu waxaad maamulka dowladdu waxaad ku kusheega dadka dowladdu anaga murmuraashaan waxaa rabnaa jirkii bedel lahaa inaan bilaabno arrinta ka baxaya waxaa rabaa waxay ka taabto inaad meesha aduunka ka taabtay dhulka degmaafi degmada sugaasi degmooyinka عرفنا هذا بيعرف واحد أنا الجماعة لكن منكم واحد أنا الجماعة عالم سائر السؤال عالم وقت بدون السنعي وأقول هاي إيه سبتوك أسياشي قولي الجماعة أو الرجل سلوك المرسكة جماعة بيعرف هذه لما واحد يشوفها كده بلية لما جاء غير عنه بس وصلت وحاولتي كنت أعمل سنة وأرجو اسمه فلما صلاة رجع رجل بعد صدق يكون رجع سواء يوسف صدق يكون رجع رجل عليه إيه يوسف ذكي يعني فلما صلاة عام صلاة إسلامي أو قراية إيه يقول كل واحد عاماتي
waxaan ku shaqaynayaa ninkii magaalada biyahanagayey iyadoo aan yarahayn sida adaa dhacde inuu hadda ku hawleeyahay inuu baldin ka dhiso mutaab uu heegi yahay annagu haddaan nahmulku dadkaana waa ka qaadan isaga aan ku qabanay waa soo socdaa asuu waayna idinku horeeya waxaa inaad ka qayb qaataan ilaashka qabaatana ilaa aan wada qaadinaba marka anigu waxaan soo jeedinaya okay gacmooda ku qaadan hadii ay ku xasban oo ila xasban ayna muujin kuma iskaya waa waa inaan mudan aniga عقيدة الله عقيدة أن تعصر والمولد الأم والله حسنها وهو الله وعيه عقيدة يعني بس وعى الله وحسنها لازم تكرع وذلك تمام بالإسلام والمعامل مع النساء والرجالة والليل والرجالة عوض عن دراسة الأهل 24 والسلام الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تغير وجوههم في النار يقولون يا ليتنا هدانا الله وهدانا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان بالله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. جزاك الله خيرا جزاء إلهي أجل حسنات أسوكم في الهيئة تسريه إلهي لكم يكون عمل فرع إلهي أنا كجيب ورشو أو إلما نغضي هو كل أسماء يشوف بالله أو إلما نغضي ما وحي مركا علمي إن شاء الله تعالى يا مرحي شوية يا ويليو يريد بحل وضو طول الله علي يعني علمه يقول لي هنين وكد الله لكن نين وكد مع ضمره إنه لكن سومالي واحد مدرسين لو بدي هاي إن علمنا مين لو بالله مين يقول لي توحى لك لو هركز كامل شراف كواسط الله وكلاس كل حاجة كل كيوب حيو كسر زيار كسر بدار كسر كواسط الله سيارات مخمرية كسر زيار كسر بدار كسر كواسط الله مركو بتخاط كمية
كسر كسر كتاب كسر جامعات الكتاب لها كسر كان عمل هو من الصومال ما كان يقولوا عندنا ميل باخذ والله لكن ماشي ميل كل ما منها ميل باخذ من الناويين وهذا دار ولا والدك وحده شو السكول كبيره كمان فقدها درع يجوا ديارها وها درع نوسك قدها باجيكوريان قدها درع نور باجيكوريان رجلي واقع درع دوران جيد انت اسمه عرفتي ما نينا ورنستا يقبح سواء يا دمان maamulka inuu ku yimi meesha ama kormeere ahaado ama xisaabiye ahaado ama macalimiin ahaado waxaan salaamayaa macalimiinta degmada Qandara oo sharafta leh oo ardaydoodii iyo iyagiiba maamulkaas wanaagsan sameeyey waxaan salaamayaa ciidamada jahliga iyo wixii xun ka reebaya ummadda intaas waa salaanti guud degmadan waxaa la yidhaahdaa Qandara waa meel markeeda hore hodana aad iyo aad bay u tahay hodan waxay leedahay bad hodana waxay leedahay buur hodana waxay leedahay dad nabadgelyada aad ugu dadaala waxaa ka maqan maamul dawli ah iyo madax mas-uul ah oo hogaamisa degmada Qandara waxay ahayd waagii ugu horeysay gacanka gobolka degmadii la baxday iyadoo waqooyi koonfur xamar meel kasta looga baari mushtarku iyadoo looga qaadi jiray dowladii Maxamed Siyaad Barre oo aan mid ka sareyso ka tirtirsan jirin laakiin waxay ku gaabsatay waxay ahayd mas-uul ceebta reeba nabadda jecel ummadda aruursha taladooda la isku raaco tafaraaqana aanu ka jirin waxay ahayd soddon iyo toddoba waxay ku talagaleen inay degmada magaceeda soo iyaanin kuway ku gaareen darabalaas yaable waa caawina waxaa noo soo raacay qorada biyaha waxaanu ka cabdiray magaalada iyo baarika dhabeeyay ku tahay badda dahabka ku jira tahay jid lahayn webi lahayn wado la maro lahayn gaadiid meesha yidhaahdo degmadu leedahay aan lahayn صديق معاه كل شيء وشي لسه ويلا وحرة اللهين معاه الدولة اللي هو لقى كان على كتسمه تعالوا على كسب لا إله وحده دبا قليل لي وحده دبا تأويلي على كده غير على دي كان يكره مدرس جرى هو على الثاني ينسي لما يعد ورياسي لكم على حدا ماذا magaaladii maanta qof dhibaata soo gaartay meel faasad looga duuli karo ma jirto waxaan doonaynaa maandhowra iyo maxaa kuu sheeganayo qola saxaafadaba iyo wixii kaloo lagu balari karoba gobolkii haddii aad tagtaan gobolka xataa naftiisa dacwa waxbarashada Nuur Foundation Boosaaso maamulka dowladda wixii ka jooga nabadoonada iyo odayaasha علماء الدين كي وحقرتك وهذا البرشلة مامورها هي معلمينك أرضها هي صحافة وسلام يا وحنا بسلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك وعفر حلوة ليلة إلى أن ما ترك الكسر والغيب جوا حفلة ليوها هي غاية عليه سنة بردي سنة أساس كنور فونديشن أنا ديبو فركة أما ديبو فركة دوسيغان إنو جوغنا يعرف هاي كيدي
sidaa la socotaan dugsigan hoose dhexe cali faa'iido geede wuxuu ka tirsan yahay 4 iskuul oo ay noo foundation gacanta ku hayso kan halkan yaal maahay kan kale wuxuu ku yaallaa degmada baldhidin waxaa la yidhaahdaa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee xaaji cabdullaahi dugsiga ku xigana wuxuu ku yaallaa magaalada timirshe waxaa la yidhaahdaa dugsiga hoose dhexe ee sheekh nuurdin cali culuw dugsiga ugu dambeeyana xiriirada waa laga dhisay waxaa la yidhaahdaa dugsiga hoose dhexe ee xaaji maxamed ismaaciil dawaare haddaba dugsigan aynu joogno waxa way 6 sano ayuu soo shaqaynayay waxaa dhigata arday hadeer ku dhuwan 300 oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho heerkiisa waxbarashada wuxuu gaarsan yahay ilaa fasalka 7aad haddii 5 sano oo soo dhisnaa hadduu fasalka 7aad oo gaaray 5 sano oo kadib hadda ka dambaysa xagee gaarayaan maxaan ka filan karaa su-aasha haddaan isku dayo inaan ka jawaabno wuxuu noqon karaa inaan filanno in ardada cadadkeeduna 1000 iyo wax ka badan gaaro heerkiisa aqoonin la gaaro ilaa dugsiga laga baxo waa saacada ku kulmaysa Soomaali waxaan joogaa waqdariyeeda daaliga gubda waxaana beeralay walaaleytaan wadaantayda sitaa dhirtaa ku waraabiya waqtiga ku baxnaaniya waxaal baan dhawraya wadada dheer baan maqlaayo qoomigi waa si kale waxay wadaraykayen wadaadka dhawaaqayaan xaggooduu nabi wadaasiiyo fooyadii caruuruhu wadan jireen wanaajinku waa maxay haddaan weelkaygina walaalahay dhan wadaha walaadahayayga celin diyaaro walaacayse wadadika allowda iyo nawoosh baa saaranahay ma walan faridaanahaan miyaana wadankada lahayn miyaana wacanee dhaxayn kuwaa waayeynaya miyaynaga weyyihiin miyayna wataasiyo waniyaarimaasino hodaan loo soogu tilay waxaa dinayo maya miyaana waajibi lahayn ninkaa calankii wacnaa waywaariyo waqtigii aan kugu ogaa wamaa kuma aad bedelin hadalkanimaan labayn wadiiqawle asaga weeraar baa taagan tahay haddii wali aragu jiray waxgaradkii qaar ka haray waa weelkay talinayaan wanaagii moogaye xumaanti la siiyo kuna waxbaan kala qaysanaa haddana kuma waafaqsani waraaqdoonteena iyo watii dalanteedahaan wadadaan hadalkii hadduu dhamaado hadalku iska faydano magaalada fiican macallin fiican baa jooga dad fiican baa jooga sidii xalada sheegtay dagaal male khidmad male laakiin xagga maamulka iyo xagga odayaalo ma jira xagga maamulkay ka cuntahay qandari waa qandara adduunka waxaan u sheegay wixii qandara ka qooban oo meel kasta jooga inay magaalada la soo gudbanaan oo sida markaas uga qabtaan dad iyo dowladda jiro oo gacan u siiyaan hagaaf male jiro male sidaa fooga adduunka inaad suurta kale qaabto meel loo maqan waa la ma aqoon waa ma على آله وأصحابه ومن تبعهم بهدي إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيركم من تعلم القرآن وعلمه نور الله هو ماشي كله يبقى أوكي لكن إلى الدنيا إنك بهدليس أما وصل النبي يسوع إلى وصلنا إنك نكون على ثاني ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وغير السلام يا ما تشرفت حفلتنا كسوة الجلي والدينتا معلمينتا قويوينكا عطياشا عبدالله صلاة له ضمانوا عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وعرضا إن المنطقة النعيشة وحبحية كبحية نور فونديشن معي نور فونديشن وحوية وهو منطقة ضميرها واسكتري وقشي ديغانيا معنا هيات منطقة نعيشة غيرها عمليات معا وعددكنا وكنت صديني وحقصدان نور فونديشن وحالة عساسي سندي وركن سياركي حتى يروح يجيستي شهر سنة مع حفلة وهي حفاظتها إلى مناسبات وكراء نبركول إلى وجه بالدنيا شهر سنة قولي إلى أساس كيرو كبير فونديشن نمبر لو يا كهذا الله فايدة إلى وحبرشنا اسمه كاسبة بلشلة وحبرشنا عن سكول الله يعني فونديشن مركا وهي قعدت كويس في السكول كهوري فرتوني فونديشن فرتوني لما كل سناكي واسكول كمان تاع الجمعة ولا يرادو عارف هي جيتي اسكول كلامات وأنا اسكول كبردين اسكول كحاج عبد الله وتوصي وسط هي سنة كورونا اسكول كيس الاتحاد وعلى فري تمشي واسكول كشهور على اسكول كفرادة سنة هذا عقد جنا لو كل سنة هيتوان وعلى فري دبوة حريرة اسكول كا ولا دوا مع إسماعيل دوارك تيران أرضي بدأت اسكول لها فتاة وعوي أرضي جاريسة كل أرضي ما هو حبرتها فكوا قياسي كتاشي سنة بيهود إلا فري أفر سكول وعافية يا تواصل الدين عن جامعة مكبرة سكولية وفور كرونتي جاري كرام وقياسي كتاها عفلية أنت هذا هو بنور فونديشن هي عقبت كذا عاوزين مرة عقبت كامل فونديشن تنزيل هو بلشلة أي حكاية قيد كقاعدة وهي دليل وعكمل الصلاة معلمين تعرفت اسكول جوجتا لما أطلع على على كتاب قاعد كعبيان مساجدنا هذه نقطة متقاعدة هي دليل هؤلاء سوق لنا متقاعدة وكولا معلمين كاس وهي دليل كاس وكولا أنا رنا بلشلة وهذه أروح قدو وحبرشلة وعوي فايدة وكولا أنا قف بني آدم كان الحكيم كل يوم وحبطه قف كنا لا قاكل يجولان بنياس بدلوا داعي بعدين الناس وكحية أنت وكيرا مقياس كتاع أرضي عماويل كعبدشة وجواب عبدشة داوية يجوجات هذا هو أحبارين مستقبل كا أغرب الروح ساتوي هذا هو أحبار الروح كعلم تاعي هو كاية دشيء وكلمة تاعي نسير ومتقنا واجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاعدي باتيتي قصة صحيحة وين بأبيه سدري وحول كبفته وقرع وين كانوا قرع يا أبيس ووجي ودعوة باوعة ويمت وحوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعشرين وين كيس ودري عمر روح هذا عمر روح عن قوامة وأنا لك وعيانا سكر عن مغرب كان دون نجا ولا دونك وين كدري ويلكي هو يمد عمر وحنا أسلم يمد عمر وكل هذول ده بلتها أنت عمر كاره دعوة يوقع الكار بل هو رئيسه يودي وسؤالنا يودينا عمر أعطاه حق المقول هو هاي أصلا حق المقول يعني عمر يقول له أعطاه حق وقول له هذا ما في عربنا حروفنا تفوت كقار ما بحيه نبرة هاي عاصمة يديروا مجلسين وأول بحقوق العلاء إلا سبوبتي بحقوق العلاء تسمع سمعت هذه خلق الدور والدين تبقى على هاي إن المهم يفيد العالم لا أقول إن أقول هذا اللعبة هاي ما عن علاش أنا أقول بعسو خاصي أنا أقول قدو ما عن واللعبة هاي وحبشين سنة كده يسكول عن قاعد تقول أنا هذا سنة يسكول وكله سؤال سويدنا معي تاي صورتها أرض البشي اشتغل امتحان كسوه اللي جاهلين اسكبه حي صورت معي تاي أنا ما كان قيمي صورت وحوي والدين تفاعلوا قيمة وحبرشة ولا لا بفهم سنة دمانتوت waxay ayaga ka jira xagga waxbarashada waxay ka samaysay horumar badan waa aragnaa maanta xafiis waaweyn baa u joognaa
waxbarashada horumar ka samaysay laakiin adeegyadii kale sida wadooyinkii waxbarashadii wadooyinkii caafimaadkii isgaarsiintii maxaa helay waa su-aasha gabanadii laga kaxayste la kala gabanay karalu qararayno iyo geesiyaa u kacay garaas gabanku wiilsha garasareeya la gaarihay ilaaho guule algamula diimudiri allahaydin daayo toohorayaashii allahaydin daayo toohorayaashii dalkaani diriciyadiinu wadna diis diriciyadiinu wadna diis dalkaani dinkaale iyo duga meeshaya dalkaani nagaale iyo duga meeshaya dayada loo soo kacaysana waadiya dayada loo soo kacaysana waadiya wadadaasheeno duca waa idbaad qabta dugaduun hawgalaye hagaaliyaa macalimiin diigana oo nogayma dhulkale macalimiin diigana oo nogayma dhulkale haddana u garaaray dhiigooda deemanka misana u garaaray dhiigooda deemanka ilaahay gawrigadeeda naga rabi waa inaad hoosu dhugaadka dhibkay qabaan war waa inaad hoosu dhugaadka dhibkay qabaan